wadada isku xidha gobolada Sanaag iyo Togdheer ee Siilaan iyo Roor qaybteeda ka socota bariga degmada Garadag oo maalmihii ugu dambeeyay si xawliya u socota ayaa waxa kormeer indhaindhayna ku maray shaqaalaha wakaalada wadooyinka Soomaaliland oo ka mid yahay maareeyaha cusub ee wadooyinka Axmed Maxamed Yuusuf iyo maareeyaha ku xigeenka Mustafa Faarax Qalab iyo shaqaalaha wakaalada wadooyinka oo ay ku wehelinayeen maamulka degmada Garadag ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Garadag oo soo dhaweeyay maareeyaha cusub ee wadooyinka waxa uu mahad celiyay shaqaalaha wadooyinka sida habsamida leh ay u wadaan wadada waxana hadaladiisi kamid ahaa loo yaqaano sayidku ahaa sayid hore wadada qayb hore uga qaatay waxaanu mar labaad ugu soo dhaweynaa maareeyaha cusub waxaan aad uga mahad celinaynaa shaqada la wado wadooyinka ay ka wado ilaahay uu sii badinaa Sanaag وحوي سفاح وصعود شغل في عبال الحياة وهذا هو اللي مخرب قلب السعودية وقرأ حاولنا هروج أي شركة فكان في وحوي يدرسوا ما بدأ نقدر سلا وحلا وضاء سلا وشو سقطوا وحاول ويغي كرا وحوي وواحد تجيني كلام لو لا يعني يعني لكن لسما لدين marka aad iyo aad baan u bogaadinaynaa shaqaalaha beetahay kala shaqada soo dhaweynaa maareeyaha cusub oo isaguna shaqada ku cusub waxaa leenahay isagana shaqada xilka Allah ku fududeeyo wax iskula hadmayso maanta waxa weeye xiliyuu badnaaye waddanka Soomaaliland halka ku yaalin waxa weeye waa wadadaas wixii kala dhan waxa weeye waa wax ku tarsiya annagana waxa weeye dadka reer Sanaag runtii waxa weeye waa caqabad taagan kaliya weeye haday wadadaas dhamaato waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa dhinaca kale ayayna waxa hadalka qaatay qaar ka mid ah injineerada hadda gacanta ku haya wadada gabagabadiina waxa soo xidhay maareeyaha wadooyinka mashruuca ergaabo oo ah qaybta Garadag waxaan bilownay bishii 8 imika waxaan shaqadu ay socotaa waa bil iyo 10 cisho runtii waxaan aad ugu faraxsanahay shaqadan oo aanu ka bilownay duleedka ama bariga Garadag caqabada horta ugu muhiimsan ee inta aanu raadino waxay noqotay carakaawada oo aad uga fog insha Allah laakiin waxaanu ku rajoonaynaa dhawaan inaanu sida ugu dhaqsaha badan leh aan carada ku helno nooha caqabado iska badan yihiin laakiin waxa weeyaan insha Allah waxa baaburto laakiin cusub waxa baaburto cusub waxay noo suurtagelisay in shaqadii ay dardar aynu dhawaanna insha Allah sanadka cusub ka hor inaanu isku xulno 5 kilomitir insha Allah biinilaahi kariim aanu rajaynayna waana qorshihii iyo balaankii noo degsanaa oo ahaa insha Allah dhawaan inuu inta sanadka dhimaanaanu isku xulno mudan maareeyo waxa weeyaan xagga kale ee qaybta kale ee bariga waxay ka soo socotaa cilmigan ilaa fadhigaab duleedkayga finalku waa noogu dhow yahay iyada kaliya waxa caqabad nagu noqotay xaawada oo aad u fogaatay in bil sharaf la siiyo hadii ku halka joogaba waxaan u doonaynaa inaan sheegno qaranka Soomaaliland inaan wadooyinka la dhisay aanay ahayn jiingada la taagtaagayo in 1 kiiloomitir iyo 2 kiiloomitir time fara badan ay galo in daamur galo in ciid gasho in ciid dumar ka fogaato in biyo galaan dadka qaar baa aqoon darrada iyo jaahilnimada haysa waxay ku oranayaan maxaa wadada ergaabo soo dhamaan weeyay waa 300 iyo dheeraad kiiloomitir waxa lagu dhisi karaa time dheer waxaanu dadka u sheegaynaa in ahad iyo jeer wadooyinku aanay ku dhismin maalin iyo 2 iyo bil iyo sanad iyo 5 bilood midna aanay ku dhismin wadooyinkii hore u dhismayaan jiray ee garanaysaan ay ka mid tahay wadada u dhaxaysa maanta Gabiilay iyo meesha la yiraahdo Hargeysa muddo 9 bilood aba halas ayaa waxa lagu hayay laami oo waliba wax kasta ay naga fiicayeen oo naga fiican wadada hore u dhisnay ay sanad iyo bar qaadatay wada cusub oo dhagaxeedu cusub yahay daamkeedu cusub yahayna oo garan kartaa wada salaan maanta waxa joognaa wasaytii labaad oo wadada Sanaag iyo Togdheer ay ka socoto waxaan soo baxay correctionka halkan wasaytii labaad ee bariga u socday waxaan gaari doonaa sayidkii saddexaad ee soo socday dhinaca galbeedka sida injineeradu ay sheegeen qorshaha guud ahaan waxa weeye in sanadka inta ka hadlay ay suuqa yahay 3 degmo Garadag
garadag ceelaf weyn iyo caaqaab insha Allah taala ballankeega iyo fishankeega nooca weeye sida kale waxaan u baahanahay dhammaan guud ahaan shaqaalaha hay'adda RDA ee goobaha ka shaqeeya runtii goobadii inta badan ayaa jooga inta badan runtii aad iyo aad xaaladoodu u adag tahay jooga magaalooyinka ka fog yihiin si walba aan ugu dhabaradaygaya wadada ka shaqaynta wadada iyo dalkooda iyo dadkooda gaadiidka oo runtii hadda halka shaqeeya fiican oo cusub laakiin in badan gaadiid oo soo shaqeynaya uu jiro dhammaan arrimaha oo dhan sidii insha Allah dhaba baan u wada shaqeyn doonaa baahiyaadka wadada ugu xigtaan ka gaari karo wadada dawlad dowlihii ummadda dalka iyo dadka guud ahaan gobolada bari iyo guud ahaan gobolada dalka oo dhan insha Allah dadaal badan baa gelin doonaa si shaqeynta oo cusubahay waxaan ka maarmi waayo laga marmaan oo si degdeg u soo gaaro wadada ka bacdi insha Allah waan si wada joogi doonaa waan isku soo noqon doonaa khayr insha Allah niyada u sheegaynaa balantayda hore ay dalka marka bishii sideed malaas afarteed meelahaas halka marayo baad waxay inaas dhaqsaaydo ku soo noqon doona runtii balantii fulinteedii iyo qorayntii wadada iyo xaaladda jirta u soo degdegay wixii kale wara si kale waa kala qaadan doonaa dhammaanna waa wada salaamaya ummadda deegaanka guud ahaan gobolka iyo degmada Farxad Cabdi Nuur, Fankebel TV, Gar adag.